wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Ceergaabo ka daafurtay imtixaanka wadida leysamada gaadiidka waxaana munaasabadii daafurkaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag goobjoogayaalka ahaa barsaabka xigeenka gobolka Sanaag taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag duwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Sanaag iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa waaxda imtixaamaadka ee wadida leysamada gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Khalid Abdullahi Maxamuud halkan waxaan joognaa dhamaantayo inaan daafurno liisamadii imtixaanaadka gobolka oo ah gobolkii shanaad laga bilaabo waxaanu saaka ugu bashaareynaa bulshooyintiin badan sugaysay liisamadii in gobolka saaka laga daafuray imtixaan cusub iyo nidaam cusubna laga qaadi doono system cusubna lagu qaadan doono liisamada cusub ee Soomaaliland sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay suduwa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Xasan Axmed Cabdulle xafiiskii liisamada baanu halka ku daafuraynaa oo shaqadiisii dhamaatay oo ay isku dubadhacday xataa ma garanaysaa dhulkii lagu qaadayay imtixaanka waad aragtaan wixii way isku dubadhacsan yihiin dadweynaha waxaan u sheegaynaa iyo dareewaliinta in loo daafuray ma garanaysaa liisamadii iyadoo hawsha process loo marayo xaaladdu sidii hore ma aha ii sameeyo ii soo sameeyo ma aha nin walba wuxuu yaqaanaa buu halka la imanaya sinayna dadka bileedadii waqtigoodii waa dhamaadeen waa gebagebo bedelkii inay soo doontaan dadka reer Ceergaabo ama gobol taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ciidanka ilaalada wadooyinka amar ku siiyay inaanay sii deynin rawal dambe oo bilaalaysanaa maadaama la helay iminka imtixaamaadkiina la qaadayo liisankiina la bixinayo waxaan faraynaa marka hore oo amraynaa laanta ilaalada wadooyinka iyo ciidanka booliska amniga inaanay dib u dhicin cid dambe oo aan liisan sidan inay gaadiid ku kaxayso magaalada barsaabka xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo gabagabadii munaasabada daafurkaasi ka hadlay ayaa isaguna sheegay faa'iidada ay leedahay qaadashada liisanka wadida gaadiidka barkhad maxamed gaaray inaynu liisankii furdaha furo gobolka laga qaadan lahaa run ahaantii oo aan weligii laga qaadan maanta ay ugu horeyso run ahaan waa waxaynu u baahnayn waa horumarka hadda gobolka ku soo kordhaya weeye waa waxaynu sugaynay waa waxaynu baahi weyn u qabnay aad baan u soo dhaweynaa run ahaantii hawshaas ugalana shaqaynaynaa wixii annaga xagga iyaga garaamka barkhad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag.